Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada janalka Sharma Sheekh ee tiknoolajiyada iyo design-ka. Cashirkan waa cashirka saddexaad ee barashada kombiyuutarka ee Windows 11. Maanta waxaan baranaynaa sida kombiyuutarkada loogu xirto password. Okay, cashirkeena ayaan guda galaynaa. Waxaad tegaysaa start menu, start menu kadibna waxaad dooranaynaa kulli dadka qaar inta ay ugu soo laptopyada ayaa kala duwan, laakiin guud ahaan waxaad tegaysaa start menu kadibna waxaad ku dhufanaysaa account-kaada. waa kan ama si ka fudud ayaa ku hayaa. waxaad tegaysaa inta search ayaa qoraysaa setting kadibna waa galaysaa. markii aad gasho wuxuu ku soo waxaad tegaysaa account ayaa ka tegaysaa kadibna waxaad ka sii tegaysaa sign in options. waa kana meesha password lagu xirto. meeshan ugu koreyso waa inaad ku xirataa face-kaada, weji inaad ku xirataa. meesha labaadna waxaa la dhahaa fingerprint, waxaad ku xiri kartaa suulkaada fartaada. mid saddexaadna waa pin aad u taqaano password caadi lambarada. qayb saddexaad oo ah security key la dhahaa flash inaad ku duubto password kadib aad gelisaa. waa meesha ugu horumarsan waana cajiib Windows 11 itaanka isku mid waaye. kan meeshan waa password oo ka kooban lambar iyo letters, waa number tiro iyo xidurtii xarfo waaye. meesha ugu dambeyso ah iyadana picture, waa inaad meeshan waa inaad sawir aad ku xirataa. okay, meesha xidurtii laakiin aniga maanta halaha ma baranayn, waxaa baranaynaa password ayaa baranaynaa. password inaad ku dhufataa xidurtii kadib password markaa ku dhufato waxaa ku soo baxaya aad markaa ku dhufato waxaa ku soo baxaysa haddii kombiyuutarkaada hore password ku xirnaa janji ayaa ku soo baxaysa. haddii hore password kugu xirnayn xidurtii waxaa ku soo baxayso passwordkaada inaad geliso xogtaada sidan camal. hadda new passwordkaada inaad geliso oo cusub kadibna passwordka aad ku celiso. hid password ayaa la meeshan inaad hid password aad ku celiso. hid passwordka wuxuu yahay password hidka waa markii aad si guul aad u heshato passwordka saxda oo isticmaal qof oo ku shaqeysto ama system ama account. tani waxay dhacdaa inta lagu guda jiro tijaabo amni, security testing and brute force attack. inta lagu guda jiro ayay dhacdaa. sidaas awgeed ayuu ka caawinaya password hidka, aad ayuu faa'iido ugu leeyahay kombiyuutarkaada. okay, passwordkeena ayaa gelinaynaa. waa ku celinaynaa passwordka kadibna hid passwordka ayaa gelinaynaa. waa kaa sidaas ayuu kugu samaysan yahay. haddii aad finish dhahdo waa kan password kugu xiran oo laptopkaada Windows 11. waa kaa passwordka gelinaynaa wuu inoo shaqeynayaa. sidaas ayuu ugu xiri kartaa haddii aad rabto password. daawadan waxaan sharaf kaaga codsanaa janalka inaad subscribe noo saarto, like iyo share. intaas waa dhiirigelinteena taasna waxay naga caawinaysaa inaan muuqaalka hore aan sii wadno. waxaan